أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دمان أنا waxaan horeysiinayaa taageerayaashayda xisbigii wadani ka soo diga rogtay ee isoo raacay ayaa horta u mahadnaqayaa oo leeyahay waan ku mahadnaqayaa sida wanaagsan ee u ajiibteen ee uga soo qayb gasheen xafladan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaa kaloo u mahadnaqayaa mustaqbalka madaxweynaha xisbiga kulmiye iyo dhammaan inta kale ee madax iyo mijaba leh waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ii sheegayaa maalintii dhaweynan hadle waxaan idhi aniga iyo taageerayaashaydiba xisbigii wadani waannu ka baxnay sababahaannu uga baxnayna gadaal baan ka soo sheegi baan idhi haddaba ninku hadduu meel ku jiri jiray imaka sankaa yaraan kuran markay udub ila taataabatay amay nin hadduu meel ku jiri jiray inuu wax ka yidhaahdo looma baahna laakiin anigu waxaan uga soo baxo sababta koowaada cadaalad darro aniga igu dhacday taageerayaashaydii ku dhacday danihii guud ee dalka oo ka arki waaya xisbiga wadani intaasaan uga soo baxnay aniga iyo taageerayaashayda kana waxaan u doortay kulmiye horta asalkayga markii hore waxaan ku wanaagsanaa waxaan leeyahay mucaaradada maxaafadada ma aqaano guulwadayntana ma aqaano laakiin daahiryaal waan u guulwadeeyey si fiican baan u guulwadeeyey anigoo la dagaalamaya kulmiye anoo kulmiye la dagaalamaya waan u guulwadeeyey sababtaan ugu guulwadeeyey waxay ahayd taa aynu maanta ku joogno ee nabadda iyo dowladnimada iyo dadnimadaha madaxnimadiisa ayaynu wax badan ku helay intii waxaa la odhan jiray reer baa meesha xuurto ku haysta qabiil baa haysta kadhiish baa haysta horta madaxnimadiisa wax weyn bay soomaaliya u tagtay markii dambena inuu guulaysto waan jeclahay xaggooda nimankii meesha haystay madaxda ahaa ayaa xaggooda ka dhicsowday iska dhaaftaa kulmiye intaan ka aqaanay baanu dadka kulmiyu ku jiri hadday saaxiib tahay hadday aqoon tahay hadday si kasta tahay dadkii aanu isku wanaagsanay eenu mucaaradadana soo wada bilownay waxay ahaayeen kulmiye ahaa ilaa markii beer aanu tagnay iyo kowkadda ina bixiyo ina xaashiyo ina kahayo xaggaasaan ah waxaad ku qosaysa waxaan ka sameeyey beerna rikoorkii taariikhdaydii lama qorin show qoladan kale ee annaga naga soo hor jeedaa markaannu hadlaynana baalkaba uma dhiibana way baktiyaan annagu markay iyagu hadlayaan kolba meelu faafiya adugu calaa kulli xaal dadkaygii bay ahaayeen markii imanka xisbigaygii baaba'ay udub een kolkii dambana kan aan raacay ee kiinaan afgaran waayey markaan sidaa u eegay saddexda xisbi waxaan kolkii horeba kaagii kalu ahaa dad baa moodaya qabyaalad jamaacaddaan idiin dhaartan rumaysan maysaan anu markaan kulmiye ku soo biirayey saddexda musharaxunbaa saa u eegay ilaahay wuxuu igu ogyahay inaan isweydiiyey waa dalka keebaa u dana dalka keebaa hoggaamin kara dalka keebaa sidaa samayn kara inaan bidixaa ii soo baxay inaanan qabyaalad ku qayan baa wallaahi qabyaalad haddaan raacayo de waniga inaan riyaalaba u tumayay anu qabyaalada maqan mabdabaan ayaan leeyahay saddexdii umaad miisaanka saaro waxaanu wallaahi kaasi ayaa ugu dhow de haddaanu isku qolan nahayna dembi maaha haddaanu isku qolan noqono dee dembi maaha
waxaan idiin sheegayaa in yar bay iga raadinaanoo madaxduna waxay leedahay waanu tegaynaa aas baa jiro nin qaali ah ayaa dhintay axmed jabqal la odhan ilaahay ha u naxariisto horta ninkaan faataxadoo markii hore idin ilaameen Soomaaliya sooyaalkeeda markaynu ka hadlayno in yar baan ka taataabanaya waxaa ugu horreeyey oo guddoomiye loo doortay cabdiraxmaan axmed cali wakhtigu la kulmay dee ninkii jooga loo sheegi maayo wakhti xun oo ciriiriya oo xun buu soo beegay ilaa xad gaarigii laga qaado cashadiiste laga qaaday laakiin anigu waxaan aaminsanahay wixii ugu weynaa ee waxqabad la yidhaahdo inuu qayb libaax ka qaatayoo ahayd in loogu yimi Soomaaliland oo kala yaacayn shirweynihii la qabtay oo doorashadii laga helay oo si fiican u tiriyey wuxuu doonahay ka yidhaahdo wixii ka dambeeye anigu waxqabad baan u haystaa marxuumkiina dee waxaanaynu ku faanay inaynu sheeganayno aabbaheen buu ahaadoo ninkii haykalkan dowladeed inoo sameeyey baayee daydagii iyo wixii meesha yaacayay habeeyey ninkii distoorka inoo sameeyey buu ahaa qaabkaa dowladeed oonu u dhisannahay ee haykalkaasi ninkii sameeyey buu ahaa ee ina dowladeeyey wax u dhigmaataana ma jiro saaxiibkayga yaalana raadkii cigaaldhigay iyo distoorkii 7% lagu codeeyey ayuu hirgeliyo 3 doorasho oo midna saxan ku dhicina kaahilow ayuu ka qabtay dalka 3 doorasho oo midna saxan ka dhicin oo laba isridiin ayuu ka qabtay waanu ku mahadsan yahay waxaan idiin sheegayaa kaasina intaasuu qabtay madaxweynahan imanka jooga axmed maxamed maxamuud dee isagoo taariikho horu lahaado hoggaamiyihii SNM buu ahaa 6 sannadood hoggaanka hayey ninkii ugu muddada dheeraa nimankii la doortay ee madaxda ahaa SNMta ayuu ahaa guud ka wanaagsanimada taa malaa ma jirtay haddii uu noqday madaxweyne haddii uu noqday wuxuu ka tegayaa wax muuqda oo la taaban karo oon muran ka jirin wada cararaun maaha wixii lagu dhici waayey ee la odhan jiray darajooyinka iyo askartan janankii iyo dablihii murmayaan ha loo sameeyo darajooyin ee dowladihii horena ku jiray annaguna ka midka ahaa aanu ka maagnay ninka ku dhacay boo wuxuu ahaa ninkii ku dhacay waddada 370 kilomitir ah ee dowladihii waaweynaa ku dhici waayeen ku dhiiraday ee maanta loo soconayo waxay ugu badan tahay 4 saacadood inta kalena way dhammaystireen allaahuma salli calaa maxamed lacagtii gabaarkee la bedelay waxaase waa lacab khafiif horta darajada iyo waddada waa taariikh u taalla maxaan ku idhaahdaa wax kastaba isoogeelaaniyo waxa maanta inoo muuqda wasaaradaheennii tiro kasta ha lahaadeene iyagoo u eg wasaaradihii caalamka hadday dhismo tahay hadday farniijar tahay hadday laab tahay intaaba dee way ku qorantay xaajiga ku qorantay intaasoo dhammina waa intuu muuse biixina ku kaambeegaranayo waa caqabadka xisbiga ayaa lagu qiimaynaya ninkii siyaasadda yaqaanaa wuxuu ku qiimaynayaa kolba sida xukuumaddiisu wax u qabato haddii imanka siyadoo qalqallocan wax loo wado muusey ku noqonaysaa ayay dhibaysaa haddii imanka wax badan baa la sheegaa anugu waxba halkan ka odhan maaye laakiin wax liddi ku ah ayay u dhici doontaa hadhowti ninkaa la dooranayo xadhigan baasa idhahdeen xukuumaddu hadday wax xumayso imanka silaayadda waa kii yidhi waan iska tegay oo anugu 6 bilood uma dhammaysanayaae dee ina biixun bay waxaasi ku dhacayaan
marka waxaan leeyahay hadday weysiileeyihiin hadday madax kale yihiinba war iska ilaaliya shantii bilooda kaambeynka ahane waxyaabaha laynagu dhaliili doono ee laynagu caayi doono ee dhaawac kaambeynkayna gelinayana inaga ilaaliya haddaba maxaa yimid ina muxuu ahaa sinaayo maan dhigin waxaan haddaba ugu soo biiray kulmiye nin waliba waxbuu soo qabtay xisbi waliba waxbuu soo qabtay waxaan doonayaa guusha kama dambaysta ah ee Soomaaliya gaarayso ee aqoonsigii kow ka yahay inaan ka qayb noqdo oo muuse kala shaqeeyo oo taariikhda noo gasho oo muuse kala shaqeeyo oo insha Allah waanu guulaysani aqoonsigana wuu imanin inaan mustaqbalka inaan bixin noqdo hadduu i diidana waxaan idin sheegayaa waxyaabahan xisbigan ku soo doortay ama muuse aan kuwa kale uga horraysiiyey beri dhaweed odayaal saxad muuse oo waa salaadiin baa la xidhxidhay qaar baaba fadhiya imankeen doorashana uu doonay dabeeta kuwan yareer baalada keemaraha wadwataa u yimid maxaad ka qabtaabaya salaadiintaa la xidhay wixii salaadiintaa la xidhay sharcigiibay gacantooda ku qaateene lagama gardanee sharciga hala marin nin kale halkaa waxay muuqanayaa inuu ninku dhacla yahay oon waxba ka laamaynin runtiina way ahay nin kale wuxuu nahaa walba dhigan doorashada doonaya ka meermeer kuwii kale maxay ka yidhahdeen musharaxiinta maxay ka yidhaahdeen waa qalad xaaraan weeyaan maxaa loo xidhay waxaan leeyahay allah qolada xabaal bay tegaysaa sheeka way dambaysaa waa geli dambe sheeka way dambaysaa waa geli dambe waxa inoo ballan kaambeeykeenu markuu bilaabmo ya nin waliba wuxuu ka talo ina bixiyow ina kaahiyow ciidankan wata maaha ciyaar kulmiye wadani waxaan uga soo baxay anugu iskuma haysto nin hoos loo eego nin wax la weydiin waayo nin lala tashan waayo iskuma haysto ka meesha ka madaxda iyo idinka baan waxaan isku haystaa anba ka sarreeyaan ba la mid ahay marka ayaynaan iskula imanin dad soo biiray uno meesha u soo galee waxaannu doonaynaa waxaannu qaban karro inaannu annagu waxqabadkayagu haddaan aniga ahay iyo hadday taageerayaashayda yihiinba waxaannu nahay dad wax goosan kara wax qaban kara wax dhisi kara oo adag ayaannu nahay waxaannu ka doonaynana isku sheegi mayne xisbiga madax baannu ka doonaynaa xisbiga gola dhaca iyo ku fulina iyo ku kalaba madax baannu ka doonaynaa waxaannu goosannana waxbaannu ku doonaynaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu